بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان الكريم الوين يمضن يا المال ولبوا الجوكتان كسو دوادا وركة تيفي الرويال وفافاسن وحنا حلقان إذا كجا إيمان يا استوديوها قلبيت كمجالة لندن يا دلك بريطان وحنا وديارة وركة إنه دلس عدسي يعني محمد عبد علي ضاعت أفيانك إذا مضى عميصوم كورنيل علي آدم محمد أياشر جرائد مانتا كقبتي مجالة مقدسة وحنا كجها لي حالة أمانة جودها دلك الصومالية وحنا شيء إن حلقان تاي حالة دلك الصومالية متأدوها جاكسر إسلام مركانا إذا مضى عميصوم كوضان هولا وناكسن ففاينت وركاسي وحا مجالة مقدسة إنه قصود دري أويس محمود جلعو dibadbax balaaran ayaa maanta ka dhacay taalada daljirka daasoon ee caasimadda magaalada muqdisho kaasoo ay ka soo qayb galeen dadweynaha aad u fara badan oo iskaga kala yimid 17 degme ee gobolka Banaadir dhanka kalena waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday maamulka gobolka Banaadir dadweynaha ayaa sheegay in ay aad uga xun yihiin dhibaatooyinka loo geysto shaqaalaha Turkiga ee ka howlgalo caasimadda magaalada muqdisho ففاينت وركاسي وحا مقالة مقدشة إنه قصو ديري عبدالقادر محمود عرب أو كقيب قلي بنانبحاسي بنانبح بلارن oo ay ka soo qayb galay shacabka ku dhaqan 17 degmo ee gobolka Banaadir ayaa waxa uu ka dhacay daljirka Daarsoon ee magaalada Muqdisho banaanbaxan ayaa waxa looga soo horjeeday qaraxyadii lala eegtay shaqaalaha Turkiga iyagoona lagu taageeray dawladda Turkiga hawlaha ay ka wado magaalada Muqdisho dibadbaxyaashan ayaa waxa ku helinay qaar kamid ah gudoomiyaasha degmooyinka iyo maamulka gobolka Banaadir dhammaan shacabkii ka soo qayb galay banaanbaxan ayaa waxa ay wateen calanka dawladda Turkiga iyadoon wajiyadooda laga dheehan karay sida ay uga xun yihiin dhibaatadii ku dhacday shaqaalaha Turkiga ee ku sugan magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarsan gudoomiyaha gobolka Banaadir oo la hadlay banaanbaxyaasha ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay qaraxyadii lala eegtay shaqaalaha Turkiga ay ka qayb qaadanayay dib u soo nooleynta magaalada caasimadda ee Muqdisho waa sidoo hadalku u dhigay meeladka lagu daaweeyay fureen isbitaal way dhiseen weynkii ka batay isbitaal kale dhiseen iskuulay dhiseen meelo biyo laga cabay dhiseen meelo shacabka raashin loogu kariyo lagu qaybiyay dhiseen jidadkii bay dhisahayaan dhismadii intay dhaafeen bay waxay dhaheen magaalada Muqdisho waa inaan nadiifinaa magaalada Muqdisho sidii ay ahayd inaan ku celino oo nadiifino weeyne shaqaale Turki ah iyo baabuur iyo qalab wakaas gadaashiina ka muuqda qalab marka buuxa oo qalab ah qalabka culus ayay keeneen markaasay magaaladii nadaafad ka bilaabeen ilaahay baan idinku dhaariyey shacab yahow shacabka reer Muqdisho oo hurdada ka kac war ma aragteen dad idiin soo gurmadeen magaaladiinii nadiifinaya ee Turkiga ahayn war ma aragteen dad isbitaalla idiin dhisay 22 sano oo Turkiga ahayn war ma aragteen dad caruurtii naqoodiya waxbarasho 4,000 oo arday waxbarasho siiya oo Turkiga ahayn war ma aragteen 4 iskuul oo waaweyn wax dhisa 22 sano oo Turkiga ahayn sababta Turkiga loo qarxiyay waa maxay marka colaadu xaggay ka timid war colaadu xaggay ka timid Turkiga lala beegsaday arrintaasi ma aha shabaab oo keliya arrintaasi waa colaad ay ku mataanoobeen shabaab iyo siyaasad ay ku mataanoobeen waa arrin siyaasadaysan oo la mataanowday shabaab la mataanowday shabaabku qaraxa ayay samaynahayaan oo waa isdilahayaan naftood halaag weeye laakiin dadka taxriyaad dhanka kale waxaa maanta gudaha magaalada Muqdisho qaraxyo lagula eegtay laba kamid ah nalalka ka shaqeeya soolarka ee ku yaala wadada Maka al-Mukarrama iyadoona maalmii la soo dhaafay ay muuqanayeen in magaalada Muqdisho amaankeeda hoos u dhac ku yimid sida ay ahayd toddobaadkii kor Cabdulqaadir Carab Royal TV Muqdisho.